السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركلة سود وهذا أدي هذا وما هتسنتين مقال كان واحد ربعنا ندخل وذاقوا عبد الكريم إدلة oo saddex toddobaad ka hor magaalada Muqdisho laga soo qabtay isla markaana loo haystay kiiskii Feeding Our Future ayaa shalay la keenay gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis maantana maxkamad ayaa la soo taagay arrintaasi waan idinla wadaagayaa madaxweyne Trump hadalkii xalay uu u jeediyay shacabka Mareykanka oo shaaca kaga qaaday in ay dawladdiisu ay soo bandhigayso cadeymo la xiriira in doorashooyinkii madaxtinimada ee sanadkii 2020 ay soo faragelisay dawladda Shiinaha isla markaana xogta in ka badan 200 milyan oo qof oo codbixiyaasha Mareykanka ay gacanta ay ku dhigtay ayaan idinla wadaagayaa iyo waliba dawladda Shiinaha oo arrintaasi iska fogeysay madaxweyne Trump ninkii u qaabilsanaa kombiyuutarka marka madaxweynuhu khudbadaha uu jeedinayo qoraalka madaxweynuhu uu aqrinayo ninka u qaabilsanaa shaashada madaxweynuhu uu ka aqrinayo qoraalka ninka u qaabilsanaa inuu hago oo lagu helay in uu qamaar ku dhigtay hadalka madaxweynaha waxa uu dhahayo iyo waxa uu san dhahaynin lacagta uu ka helay maxay dhan tahay iyo waliba aqalka cad oo ninkaasi shaqo joojin ku sameeyayna waan idinla wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada waxaan ognahay 3 toddobaad ka hor magaalada Muqdisho in lagu qabtay Cabdikariin Iidle oo la rumaysan yahay inuu ahaa la taliyaha koobaad ee haweeneydii madaxda ka ahayd ururkii Feeding Our Future ee lagu musuqmaasuqay lacagtii 300 milyan oo dollar ahayd xilligii coronavirus-ka loogu talagalay in caruurta low income-ka oo dhaqaalahoodu uu hooseeyo cunto lagu siiyo Cabdikariin 4 sano ayuu baxsad ahaa dawladda Mareykankana ay raadinaysay waxaa ku dhawaad 3 toddobaad ka hor FBI-da Mareykanku ay ku dhawaaqday in iyagoo gacan ka helaya ciidamada sirdoonka ee Soomaaliya ee NISA in Cabdikariin Iidle lagu qabtay magaalada Muqdisho haddaba Cabdikariin shalay gelinkii dambe ayaa la keenay Mareykanka waxaana laga soo dejiyay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota xalay waxa uu ku bariyay xabsiga Sherbrooke sawirkana waxa laga qaaday markii xabsiga la dhigayay waa maagsheedkiisii ugu horeeyay Cabdikariin Iidle waxa uu wajahayaa 31 dacwadood oo ay ka mid yihiin musuqmaasuq iyo sidoo kale lacaga si sharci darro ah inuu u xawilay iyo dambiye kale oo aad u fara badan iyo in uu sidoo kalena lacaga kickback qaatay waxaana lagu eedeynaya in ka badan 5 milyan oo dollar oo lacag in Cabdikariin uu qaatay waaranka lagu soo xirayo ee federaalka Cabdikariin waxa la saxiixay bishii September ee sanadkii 2022 wuxuuna ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee kiisaska lagu soo oogo kiiskan Feeding Our Future marka shalay markii la keenay kadib ayaa waxa hadlay xeerlaaliyaha federaalka ee gobolka Minnesota u qaabilsan dawladda federaalka Daniel Rosen waxaana uu sheegay soo qabashada iyo keenista Cabdikariin Mareykanka la keenay inay muujinayso in gacanta dheer ee sharciga Mareykanka qofku uu ka carari karo laakiin uusan ka dhuuman karin taliyaha FBI-da Kash Patel ayaa isaguna waxa uu ku tilmaamay arrintan mid taariikhi ah waxaana uu sheegay in soo qabashada Cabdikariin ay qayb ka tahay ilaa iyo 25 qof oo FBI-du wadamo kala duwan ay ka soo xirtay bishii la soo dhaafay waxaana isaguna uu sheegay in qofku uu ka dhuuman karo waa sharciga Mareykanka laakiin meel kasta uu joogo in FBI-du ay gacanta ay ku soo dhigayso Cabdikariin maanta ayaa maxkamadda la soo taagay waan arki doonaa haddii dambigiisa uu qirto iyo haddii uu doorto in la maxkamadeeyo oo maxkamadda uu doorto marka kolay Amy Bag waxaan ognahay bishii shanaad ee May 22keedii 41 sano iyo 6 bilood in lagu xukumay marka isagana waan arki doonaa Cabdikariin inta xabsi ah oo u mutaysan doono arrintaasi haddii intaasi aan ka gudbo madaxweyne Trump xalay shacabka Mareykanka khudbad ayuu u jeediyay ilaa iyo 25 daqiiqo ahayd madaxweynuhu wax kale ma uusan ka hadlin waxa uu ka hadlayay doorashooyinkii sanadkii 2020 ee madaxtinimada oo Biden uu kaga guuleystay in dawladdiisu ay heshay cadeymo muujinaya in Shiinuhu ay farageliyeen doorashadaasina la musuqmaasuqay madaxweyne Trump ilaa hadda waa uu ka sabri laayahay doorashadaasi uu leeyahay waa la iga xaday oo la igama guuleysan madaxweyne Biden 7 milyan oo cod ka badan ayaa Trump uu ka sareeyay codka popular vote oo codka shacabku ay dhiibtaan electoral college-kana 306 ayuu Biden helay halka Trump uu 232 uu ka helay Trump waxa jirtay in 60 dacwadood ka badan oo maxkamadaha Mareykanka u gudbiyay oo dhahaya doorashadan waa la xaday gabi ahaantoodna waa la diiday xitaa garsoorayaal Trump oo magacaabay ayaa arrintaasi diiday marka madaxweyne Trump xalay
hadalkiisa uu shacabka Mareykanka u jeediyey waxa uu ku sheegay in doorashooyinka Mareykanka markastaba shacabku markay codkooda dhiibtaan ay rajaynayaan in si cadaalad ah codkaasi loo tiriyo laakiin waxa uu yiri systemka hadda aan haysano waxa uu u nugul yahay in la xaakin gareeyo amaba dowlado shisheeye ay soo farageliyaan waxana uu xaqiijiyay in arrin sir ah oo in muddo ah shacabka Mareykanka laga qarinayay ay u soo bandhigayaan maxaa yeelay waxa uu yiri guddiga aqalka cad u qaabilsan dhinaca hufnaanta iyo sirdoonka Mareykanka ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen cadeymo fara badan waxa uu xaqiijiyay in xaqiiqooyinkaasi hadda kadib aan la qarin doonin waana xaqiijina ayuu yiri xaqiiqnimada warbixinadan aan soo bandhigayno oo markii hore sir ahaa waxa uu shacabka Mareykanka u tilmaamay in whitehouse.gov ay ka eegi karaan cadeymahaasi oo uu sheegay muujinaya in doorashooyinkii sanadkii 2020 dowladda Shiinaha ay soo faragelisay isla markaana sidoo kale ay doonaysay Biden inuu guuleysto oo anigu inaan guuleysto marnaba aysan doonin waa kan madaxweyne Trump oo arrintaasi ka hadlay. For many years I've called for bold, swift and decisive action to protect the integrity of America's elections. Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure. One where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard. Tonight, I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation, and foreign interference. Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you. The American people are beautiful, are great American people, but that all changes right now. The documents we will release starting tonight have been gathered by the White House Government Transparency Task Force, a great group of people, along with the staff of the President's Intelligence Advisory Board, supported by our top intelligence agency chiefs, who have all personally reviewed the findings. We are presenting this evening and fully confirmed their authenticity. You can see these documents for yourself at whitehouse.gov. That's whitehouse.gov. Go check it out. madaxweyne Trump xalay khudbadiisa waxa uu ku sheegay in dowladda Shiinaha ay gacanta ay ku dhigtay xogta ama faylalka codbixiyaasha ee 220 milyan oo shacabka Mareykanka dadka Mareykanka waxa lagu qiyaasaa 330 milyan ilaa iyo 340 milyan marka waxa uu yiri 220 milyan oo kamida xogtooda codbixinta ayaa dowladda Shiinaha ay gacanta ay ku dhigtay waxaana kamida magacyadooda adreesyadooda nambaradooda xisbiyada ay ka tirsan yihiin iyo sidoo kalena xog kale oo muhiim ah oo codbixinta Mareykanka la xiriirta waa kan madaxweyne Trump oo isaguna mar kale arrintaasi ka hadlay. Our purpose in disclosing this information is not to weaken confidence in election, but to earn that confidence by confronting vulnerabilities and correcting them very, very quickly. And that's what we're doing. The documents cover 5 major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. madaxweyne Trump waxa uu xaqiijiyay in dowladda Shiinaha sanadkii 2020 doorashada Mareykanka sababta ay u soo faragelisay ay ahayd in aysan doonayn in isagu uu soo baxo maxaa yeelay waxaan ku soo rogi lahaa uu yiri canshuurad dheeraad ah ganacsiga labada wadan ka dhaxeeyay waxaana uu xaqiijiyay sidoo kale inay heleen warbixino muujinaya in Shiinuhu ay soo saareen waraaqo codbixina oo sharci darro ah
oo Biden dartii ay u saasareen waxaana sidoo kale uu xaqiijiyay in Shiinuhu ay dowlad kale oo ka hoos maamulayeen dowladda maamulkii madaxweyne Biden isla markaana waxa uu sheegay in cadeymo fara badan ay rumaysan yihiin in wasaaradda cadaaladda ee madaxweyne Biden ay qarisay isla markaana hadda ay shaaca ka qaadayaan waa kan mar kale madaxweyne Trump oo arintaasi ka hadlay ugu dambeyntii madaxweyne Trump waxa uu sheegay in FBI-da uu ka doonayo in baaritaan lagu sameeyo dadka arintan ku lug leh isla markaana dacwada lagu soo ogo iyadoo wasaaradda cadaaladda la kaashanayo madaxweyne Trump waxa uu sidoo kale xaqiijiyay in wasaaradda amniga gudaha baaritaano in muddaha ay sameynaysay iyadana shaaca ay ka qaadayaan waxaana uu sheegay inay ogaadeen in 278,000 oo dad aan sharci lahayn in ay u diiwaan gashan yihiin gobolada Mareykanka inay codeeyaan madaxweyne Trump in muddo ah markii uu xilka la wareegayba waxa uu dhammaanba gobolada Mareykanka aqalka cad uu ka codsaday in xogta dadka codbixiyaasha ah ay la wadaagaan aqalka cad gobolada Republicaanku waa ay la wadaageen laakiin kuwa dimuqraadiyiintu gabi ahaanba waa ay ka soo horjeesteen marka waxa uu yiri waxa aan doonaynaa maadaama doorashooyinkii xilliga dhexe ay nagu soo dhow yihiin in gobolada Mareykanku ay xogtooda codbixinta ay ka saaraan dadka aan sharciga lahayn amaba kuwa dhintay waxaana uu xaqiijiyay in gobolada dimuqraadiga ay arintaasi ku badan tahay waa kan madaxweyne Trump oo mar kale arintaasi ka hadlay believe that crimes were committed yet the Biden Department of Justice slow walked the investigation and killed it. Tonight I'm asking the FBI director to ensure that the matter is fully investigated and to work with the Department of Justice to prosecute those responsible for any crimes. Finally, to reveal just how vulnerable our elections continue to be, we are releasing the results of a stunning investigation by the Department of Homeland Security. According to the DHS review, state voter rolls and public records, they identified approximately 278,000 non-citizens who are registered to vote in federal elections. Since Democrat states refuse to share their voter files, the real number is actually much higher than that. waxaan ognahay madaxweyne Trump inuu aad uga soo horjeedo mail-in ballot wax la yiraahdo dadku inay codkooda ku dhiibtaan waraaq isla markaana la tiriyo madaxweyne Trump waxa uu sheegay inuu uga baahan yahay Congress-ka inay si degdeg ah ku meel mariyaan sharciga Safe America Act oo qasab ka dhigayo qofka isku diiwaan gelinaya doorashooyinka federaalka ee Mareykanka inuu codeeyo marka hore inuu yahay muwaadin Mareykana marka codbixinta uu yimaadana ID sawirkiisa uu ku dhagan yahay uu soo bandhigo waxa uu yiri arrintan ma ahayn inay kala qaybiso haddii aan Republican nahay dimuqraadiyiin ama kuwa madax bannaan in arrintan namidaysa ayay ahayd sidaas darteed ayaa xitaa shacabka waxa uu ka codsaday in xubnahooda Congress-ka ay wacaan isla markaana ay ka codsadaan sharcigaasi in uu meel mariyo laakiin hadda codad ku filan Congress-ka sharcigaasi kama haysto marka madaxweyne Trump waxa muuqatay inuu weli gocanayo in doorashooyinkii 2020 in aan looga guuleysan oo doorashadaasi laga xaday waxa jirtay in labadii maalmood oo la soo dhaafay Congress-ka Mareykanku ay su'aalo weydiinayeen xubin Trump oo soo magacaabay sirdoonka qaranka inuu hogaamiyo oo la yiraahdo Jay Clayton haddaba waxa maalin ka hor la weydiiyay ninkaasi markii aqalka sanadku ay u codeynayeen in ay ansixiyaan iyo in kale Senator John Ossoff oo laga soo doorto Georgia ayaa waxa uu weydiiyay ninkan Trump oo soo magacaabay inuu noqdo agaasimaha sirdoonka qaranka oo la yiraahdo Jay Clayton doorashadii sanadkii 2020 yaa ku guuleystay waa uu diiday in uu ka jawaabo dhammaanba xubnaha golaha wasiirada ee madaxweyne Trump ma ogola haddii aad weydiiso yaa ku guuleystay doorashadii 2020 Biden ma dhahayaan bal haddaba su'aashaasi markii la weydiiyay iyo dooda dhaxmartay Senator John Ossoff iyo ninkan Trump uu soo magacaabay agaasimaha sirdoonka qaranka ee Mareykanka Jay Clayton bal wax yar ila daawa Who won the 2020 election? I'm not going to do this with you. This is a job interview. We've established that you have an obligation to be honest and forthright with the committee. Yes, you do have an obligation to be honest and forthright with the committee? Yes. Who won the 2020 election? Like I said, I'm not going to get into that with you. But you do have an obligation to be honest and forthright with the committee. Is anything that I just said not honest or forthright? Yes, you're not being honest or forthright. Who won the 2020 election? I think I've answered the question. We can keep doing this. Well, we're going to keep doing it because you're not being honest and forthright. No, I'm not going to engage in the theater. It's a simple question, Mr. Clayton. And I've answered Who it. won the 2020 presidential election? I've answered it.
You're here asking for the support of senators to lead America's intelligence community. We've established that you have an obligation to be honest and forthright with this committee and with the American public, but you refuse to answer a simple matter of fact about the 2020 election. Is that right? No, that's not right. Then answer the question. Who won the 2020 election? I have answered the question. Answer it. What is your answer? I've given you my answer. What is your answer? You refuse to answer a basic question about who won a presidential election, but you asked to lead America's intelligence community? Isn't it humiliating to be unable to answer this question, to have to indulge the president's delusions? We know, you know, everybody in this room knows the truthful answer to that question. Why can you not give it? I think I gave you the answer. ugu dambeyntii arrintan la yaab kale ayaa shalay soo baxday madaxweynaha Mareykanka marka uu khudbaynayo waxaa jirta khudbadiisa shaashad ayuu ka aqriyaa hortaala shaashadaasi waxaa jira qof qoraalkaasi u hagaya isla markaana madaxweynuhu mararka qaar waxyaabo aan u qornayn ayuu ka hadlayaa markaasi qofka hagaya khudbada madaxweynaha qoraalkaasi waa inuu istaajiyaa nin waxaa jirta marka madaxweyne Trump muddo 10 sano ka badan shaqadaasi u qabanaya oo la yiraahdo Gabriel Perez ninkaasi ayaa waxaa lagu helay marka inuu musuqmaasuq sameeyay maxaa yeelay website-yo waxaa jira saadaalinta ama qamaar lagu dhigto madaxweynuhu waxaas ayuu dhihi doonaa dharkaasi ayuu soo xiran doonaa marka ninkan maadaama khudbada madaxweynaha uu og yahay qamaar ayuu ku dhiganaya madaxweyne Trump hadalkaasi ayuu dhihi doonaa hadalkaasina ma dhihi doono ayaa website-yada saadaalinta oo Kalshi iyo Polymark la yiraahdo gaar ahaan midka la yiraahdo Kalshi ayuu qamaar ku dhiganaya wuxuuna ku helay lacag $100,000 ka badan arintaasi oo sharci darro ah maxaa yeelay xog aad og tahay in aad qamaar ku dhigato arintaasi waa sharci darro isla website-ka ayaa aqalka cad ku soo wargeliyay ninkan hadda shaqadii waa laga joojiyay mushaarkiina waa laga joojiyay waxaana baaritaan ayaa ku socda iyadoo laga yaabo inuusan xabsi mutaysan haddii uu soo celiyo lacagtii uu qamaarkaasi ku helay marka aqalka cad xitaa shalay afayeenka aqalka cad waa la weydiiyay waxayna tiri madaxweynuhu arintaasi aad ayuu uga xumaaday marka ninkaasi Daniel Perez-na qamaar ayuu ku dhiganayay madaxweynaha khudbadii uu og yahay oo hortaalo ayuu qamaar wuxuu ku dhiganayay madaxweynuhu ereygaasi ayuu dhihi doonaa ama ereygaasi ma dhihi doono kadibna lacag ayuu ku helay qamaarkaasi aad iyo aad u mahadsantiin